wuxuuna sharaxayaa xilliga ugu fiican ee kafeega la cabo iyo sidii loo cabo. xilliga ugu fiican oo aad kafeega cabi kartid xilligan oo kale waa markaa qadaysid ayaa waxaa loo baahan yahay kafee aan caano lagu darin. iska badaa horta kafee caano geel, kafee aan caano lagu darin, sokor aan lagu darin, black cafe ah. inkastoo aniga maanta kafeegaan aan ugu casuumo uu yahay special from Cuba. Kenya, Ethiopia kafee fiican laga keenaa, laakiin kafeega waa kafee special oo aniga ii gaara oo Cubana kafee leh oo aan maalin walba duhurka aan cabo. marka aad qadaysid isku day si raashinka calooshaada ku jiro u burburiyo kafee aan badnayn. dadka isku mid mahdada waxaa jira markii ay galbihii la gaaro naab galaan, dadkaas waxaa laga yaabaa inay hurdada xoogaa ka khashaado. dadna kafeega waxba uma dhimo, laakiinse kafee black kafee ah, kafee nero 2 shoot 3 shoot inaad ka cabi kartid maalintii. Sidee loo cabo marka sidee loo cabaa? hab loo cabaa jiro sida shimbirta oo kale saas iyo ma la rabo maalintii. kafeega eleganto waa kaas waxaa la gacanta saas oo qabsanaysaa, saas oo soo dhaqajin inay gacanta shaqaysaa rabo. kabacdina celisid. laakiin hadda saas oo qaladaad kuwa waa dadka kafeega ma waaba ugu daranba kuwa kafee caano geel cado kuwaasaba kafee ku ciyaaraba. maxaba kafee laga hadlaaba. kafeega ma dhihi kari aniga dad muslimana waa caabudeynaa ma dhihi kara, laakiinse kafeega sidiisa xurmad gaar uu leeyahay maarag. wuxuu wataa burhaan gaar uu leeyahay maarag. dadka kafeega yaqaana aniga kafee 50 sano iyo ka badan waa cabaa. ayaantii hore waxaa lagu haystay caano geelka oo dhibaato badan ka imaanaysa. and the day maalmo kadib waxaa kasoo jawaabay international reports ka akhriyay iyo waxyaabo badan arkay inuu saameyn badan uu ku leeyahay caloosh iyo meelahaas iyo waxyaabo badan. testiga ku jiro magaaladan jirta waxay tahay adoo wiil yar oo adiga dhanba da'daada 30 aan gaarin oo maqaayad wilaacada gobolada ku dhashay hataa dad aad ahayn inta maqaayad magaalada ku furay Oscar aad la tartantid. aniga waa dadaali karaa qofka meeshuu doono ka imaan karaa. aniga wadankan waxaan uga shaqeeyaa voluntary wax kastoo talaa.